نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلوات ربي وأزكى تسليماتي عليه وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ولليال إلهي سبحانه وتعالى ayaan dhammaanteen uga mahad celinaynaa jalsadan cilmiga ah iyo fadhi cilmiyeedkan ilaahay inagu kulmiyey subxaanahu wa tacaala ayaan uga mahad celinaynaa walilaahi alxamdu calaa dalik. waxaa kale oo aan u mahad celinaynaa fadhigan akhyaarta iyo dhallinyarada ka soo shaqaysay oo uu hormuud uu ka yahay al-ustaad axmed dheryoole oo runtii mar walbaba gacanta inoogu haya farsamada muxaadarooyinka iyo qalabka lagu gudbinayo muxaadaraadka, kaamirada iyo facebooka iyo kulli gacanta noogu haya. isagana waa u mahad celinaynaa, jazaahu llahu khayra jaziila wajacala mahwaahu fi jannati اlfirdows. ilaahay khayr badan allah ka abaalmariyo, jannat اlfirdowsna allah ku abaalmariyo. intaa ka bacdi walaalayaal, muxaadaradu waxa ay maanta ay ku saabsan tahay oo cinwaankeedu yahay Christmas Day iyo hab New Year waxa sharciga islaamku uu ka qabo labada dabaaldeg ama labada yacni munaasabo inaanu iftiimino. arrinkan walaalayaal, Christmas marka la yidhaaho ha laga hadlo, ereygan horta Christmas waxa uu ka kooban yahay waa laba erey oo laysdul saaray ama yacni luqa alcarabiya waxyaalaha lagu yidhaaho alkalimaat almurakaba. waa ereyada laba erey wax ahaan jiray oo kabacdi loo bedelay hal erey, markaas wuxuu isku noqday Christmas. Christmas marka ereyga ugu yaha dhalashadii badbaadiyaha. marka Christmas macnihiisu wuxuu inoo noqday marka haddii dib aanu macnihiisa u dhuuxnay oo macnihiisa dib aanu u baarnay, waa dabaaldega rabbigii badbaadiyaha ahaa. dabaaldega rabbigii badbaadiyaha ahaa. gaaladu marka waxa weeye laba madhab ayay ama laba aragti ayay ku kala leeyihiin Christmas. labada aragti waxay leedahay waa ciidu miilaadi rabbi. aragtida koowaad oo gaalada qaarkood ay qabaan waxa weeye waa dabaaldegii loo dabaaldegayey rabbi loo dabaaldegayey. marka rabbi dabaaldegii loo dabaaldegayay dhalashadii rabbi oo loo dabaaldegayo. qolo kale madhab kale oo aragti kale ka duwan oo qoladan masiixiyiintu ay qabaan waxa weeye waa miilaadu ciilaadi alibn, waa miilaadu ciidi libni, waa miilaad ciid ibni rabbi, miilaad ciid ibni rabbi. yacni waxa weeye waa dhalashadii wiilka rabbi oo loo dabaaldegayo, wiilka rabbi oo dhashay oo loo dabaaldegayo. idan marka labada aragtiba oo ay kala qabaan ama ereyga lagu fasiro wuxuu noqon waa gaalnimo, yacni leannahu waxa weeye waxay aaminsan yihiin Christmas waxa loo dabaaldegayaba inuu yahay rabbi dhalashadiisii, leannahu masiix ama nebiyullaahi ciise calayhi salaatu wasalaam ayagu gaaladu waxay u aaminsan yihiin qolada masiixiyiintu, qolana waxay u aaminsan yihiin inuu yahay rabbi, qolana waxay u aaminsan yihiin inuu yahay wiilkii rabbi. sidaa awgeed marka waxa loo dabaaldegayaba waa wax iyagu gaaladu ay ku tilmaamaan dhalashadii rabbiga
ama wiilkii rabbi dhalashadiisii. idan marka waxa weeye islaamku ereyga noocaas oo kale wuxuu u yaqaanaa waa shirki ama waa gaalnimo. waa gaalnimo cad weeye, yacni ereygan markii macnihiisa la fiiriyo waa dhalashadii rabbi. dee rabbi miyaa subxaanahu wa tacaala lagu tilmaami karaa qof makhluuq ah, bini aadam ah, khalqi ilaahi subxaanahu wa tacaala makhluuqaadkiisa ka mid ah, qofkii u aamina ama ku magacaaba rabbi inuu yahay ama rabbiba ku tilmaama inuu caruur leeyahay, yacni kharaja can millati lislaam, waxa uu isaga baxay si toosa diintii islaamka, waxa uuna noqday gaal. idan markaas si kasta oo ereyga macnihiisaba loo qeexo, dabaaldegaas loo dabaaldegayo oo badbaadiyihii oo iyagu ay u yaqaanaan nebiyullaahi ciise rabbi ay u yaqaanaan ama wiilkii rabbi ay u yaqaanaan in loo dabaaldego sharciga islaamku ma ogola. leanna waxa weeye dabaaldegani walaalayaal christmas waa dabaaldeg ku qotoma ama ku fadhiya ama ku salaysan caqiido gaalnimo. caqiido gaalnimo waxa uu ka duulahayo waa ideolojiyad ama fikrad ay aaminsan yihiin gaaladu oo ah waxaanu u dabaaldegaynaa rabbigii oo nebi ciisey rabbi u yaqaanaan subxaanahu wa tacaala, walilaahi alcizatu waalkamaal. nebiyullaahi ciise oo makhluuq ilaahay ah, oo addoon ilaahay ah, oo rasuul ilaahay uu soo dirsaday ah, ayay waxay u yaqaanaan rabbi inuu yahay. idan marka walaalayaal ciidan ciidulmasiix la leeyahay ama christmas la leeyahay waa ideolojiyad ka tarjumaysa caqiidowood. adiga marka qof muslima haddii aad tahay ma bannaana inaad u dabaaldegdo christmas, leannahu waxa weeye ma waxaad aaminsan tahay nebi ciise inuu rabbi yahay, ma waxaad aaminsan tahay in loo dabaaldegayo dhalasho rabbi, wax rabbi ayagu ay ku tilmaameen walilaahi alcizatu waaljalaalu waalkamaal walilaahi almathalu laclaa subxaanahu wa tacaala camaa yasifuun. idan marka waa ideolojiyad ka tarjumaysa caqiido, waa fikrad ay aaminsan yihiin caqiido. walaalkayga muslimka ah ama walaashayda muslimadda ahay waxaan marka kaaga digahayaa inaad ku waafaqdo gaalada dabaaldegyada ama ideolojiyada ay aaminsan yihiin, fikradda ay aaminsan yihiin oo ah waxa loo dabaaldegayaba inuu yahay nebiyullaahi ciise ay ku tilmaameen ama ay u yaqaanaan rabbi ay u yaqaanaan. sidaas awgeed ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu inooga digay gaalada inaanu ka dhiganno kuwa aanu ku dayanno ama aanu xiriirinno, inaanu gaalada ka dhiganno rabbi subxaanahu wa tacaala waxa uu inooga digay qur'aanka kariimka ah. ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara awliyaa. dadka mu'miniinta ahow yahuudda iyo dadka kirishtanka ah ee nasaarada ah ha ka dhiganina dad aad xiriirisaan oo saaxiibo aad ka dhigataan oo dhaqamada aad ku waafaqdaan oo ciidaha aad ku waafaqdaan oo dabaaldegyada aad ku waafaqdaan. muwaalaadka marka waxa weeye muwaalaatulkufaar walaalayaal waa xaaraan. gaalada in maaragta ahay lala yeesho xiriir xagga dhaqanka ku saabsan ama xiriir ku saabsan xagga ciidaha ama xiriir ku saabsan xagga caqiidada ama xiriir ku saabsan xagga dabaaldegyadooda waa xaaraam. ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aanka kariimka ah ayuu ku nahiyey laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacdin. iyaga ayaa isxiriiriya yahuud iyo nasaara. ilaahay uu leeyahay subxaanahu wa tacaala waman yatawallahum minkum fainahu minhum. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay qofkii xiriir la yeesha gaalada, xiriir la yeesha yahuud iyo nasaara, ku xiriiriya xagga caqiidada, ku xiriiriya xagga dhaqanka, ku xiriiriya xagga dabaaldegooda, fainahu minhum, ayaguu ka mid yahay ayuu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala. ma waxaad raalli ku tahay in marka gaalada safkooda lagula soo shiriyo ama maalinta qiyaamaha ee la kurbaysan yahay ee dhibku uu jiro in gaalada safkooda aad ku soo biirto? miyaad ku faraxsan tahay ama nafsadaada aad u ogolaan lahayd? sidaa awgeed walaalayaal nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi mucjizaadkiisay ka mid tahay oo horay ayuu nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi usii tilmaamay 1400 oo sano ka hor ayuu nabigu wuxuu sii tilmaamay inay jiri doonaan dad gaalada ku waafaqi doona dhaqamada iyo ideolojiyada gaaladu ay aaminsan yihiin. nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi xadiiskii uu warinayay imaamu muslim fii saxiixii uu ku warinayo wuxuu ku yidhi latattabicunna sunana aladiina min qablikum shibran bishibrin wadiraacan bidiraac. waxaad raaci doontaan oo iman doona
dad raacaya ummadihii ayaga ka horreeyey raacaya oo taaka taaka u raacaya oo dhudhun ugu raacaya caqiidadooda iyo fikradooda iyo dhaqamadooda dad ku raacaya ayaa imanaya ayuu yidhi nabigu salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi. marka nabigu salى اllahu calayhi wasalam wuxuu ku daray xataa low dakhaluu juxra dabbin la dakhaltumuuh, xataa gaaladu haddii ay galaan god abeeso haddii ay galaan waad ka dabagelaysaan uu yidhi nabigu salى اllahu wasalam wabaaraka calayh. bal god abeeso ma sharafuu leeyahay, ma qiimuu leeyahay, ma dhaxanuu kaa celin, ma ku qaadaa, ma daaduu kaa celin, ma biyuu kaa celin? waa maya, waa wax maaragtaa lagu halaagsamayo oo xataa laga yaabo bahallo inay kaa qaninaan. laakiin fikradda dadkaasi ay aaminsan yihiin iyo siday u jecel yihiin ayuu ka hadli nabigu salى اllahu calayh wasalam. dhaqamada gaalada wax xun xataa oo laga yaqyaqsanayo inay ku raaci doonaan ayuu tilmaamay nabigu salى اllahu wasalam wabaaraka calayh. god abeeso haddii ay galaan way ka dabagelayaan uu yidhi nabigu salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi. waxaa kaloo nabiga salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi xadiiskii imaamu tirmidi uu ku warinayey kitaabkiisa sunanka uu ku warinayey, waxaa nabigu salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi uu ka beri noqday qofkii gaalka isku shabaha ee xagga caqiidada, xagga lebiska, xagga dhaqamada, xagga yacni ciidahooda isku ekaysiiya. qofkaa nebi moxamed salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi uu ka beri noqday. xadiiskii tirmidi uu warinayay nabigu wuxuu ku yidhi salى اllahu calayh wasalam laysa mina man tashabaha bigayrina laa tashabahuu bilyahuudi waاnnasaara. wuxuu yidhi nabigu salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi annaga naga mid ma ahan qofkii isku ekaysiiya yahuudda iyo kirishtanka. yahuudda iyo kirishtanka qofkii isku ekaysiiya ee dhaqamadoodii oo kale sameeya, oo faystadoodii oo kale samaynaya, oo dabaaldegyadoodii oo kale samaynaya, oo sanadka cusub marka ay u dabaaldegayaan oo hab new year ay u dabaaldegayaan qofkii dabaaldega noocaas oo kale sameeya, marka ay christmaska u dabaaldegayaan qofkii sidaas oo kale ugu dabaaldega annaga naga mid ma ahan ayuu yidhi nabigu salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi. idan marka ogaaw walaalkayga muslimka ahow, haddaa dabaaldega sanadka cusub aada u dabaaldegtid oo gaaladu ay u dabaaldegayaan, oo hoteelkaaga aada qurxisid, oo hoteelkaaga aada ku saacidid, oo gaarigaaga aada ku saacidid dadka maaragtaa dabaaldega gaalada ku waafaqaya ama ciidda gaalada ku waafaqaya, hoteelkaaga aada u firaashtid oo hoteelkaaga aad ka ijaaratid, waxa aad samaynayso ogaaw waa ficil uu kaaga beri noqday nebiyullaahi moxamed salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi. waxa aadna dhimanaysaa isagoo uu beri kaa noqday nebiyullaahi moxamed salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi. ilaahayna kuma barakayn doono caafimaadkaaga iyo hantidaada iyo adduunyadaada iyo aakhiradaada, ilaahay kuma barakayn doono. liannahu waxa weeye waxa aad xiriir la samaysay ama aada noolayne dhaqankii cadowgii ilaahay. gaaladu waa cadowga ilaahay. laa tattakhiduu caduwii wacaduwakum awliyaa. ilaahay wuxuu yidhi dadka cadowga aniga ii ah ha ka dhiganina dad aad xiriirisaan. sidee qof ilaahay uu ku tilmaamay cadow uu ku tilmaamay oo cadowgii rabbi ah oo jiritaanka rabbi yacni ka soo horjeeda, oo nebiyullaahi ciise u aaminsan inuu ilaah yahay ama badbaadiye uu yahay ama wiil ilaahay uu yahay, qof u aaminsan sidee ugu waafaqday dhaqankaaga? sidee maaragtaa yacni adiga hoteeladaada aada ugu soo dhoweyn dhaqamada noocaas oo kale ah? sidaa awgeed a'immada islaamka waxa ay ka digeen in ciidaha gaalada in lagu waafaqo inaysan diinta ogolayn. xataa waxaa jira sheekh xanafi ahaa oo la odhan jiray abu xafsin annasafi min a'immati alxanafiya, isagu meesha ugu dambaysuba gaarsiiyey maalinta gaaladu ay ciidaysanayaan mahrajaanka ay dhigayaan. waxa uu yidhi sheekhaasi abu xafsin annasafi, sida uu soo guurinayo xaafid ibnu xajar alcasqalaani fii kitaabihi fatxi ilbaari uu ku soo guurinayo, wuxuu yidhi man ahdaa fiihi baydatan faqad kafar. maalinta gaaladu wuxuu yidhi ay dabaaldegayaan oo sanadka ay u dabaaldegayaan oo ciidahooda ay u dabaaldegayaan, qofkii hal ukun qof hadiye ugu geeya isagoo ula jeeda inuu gaaladii ciidan iyo dabaaldegan uu ku waafaqo, ukun qofkii qof u hadiyeeya maalinta isagoo gaalada ku waafaqaya kuna faraxsan ciiddooda, faqad kafara, wuu gaalo buu yidhi. xaafidka ka soo guuriyey sheekhan la yidhaaho abu xafsin annasafi min a'immati alxanafiya. xataa culimmada qaaraa qaba in lagu gaaloobayo ciidaha gaalada. qayb xanafiyada ka mida waxay qabaan ciidaha gaalada in lagu waafaqo in xataa ay tahay yacni gaalnimo ay tahay oo qofku uu ku gaaloobayo. sidaa awgeed marka walaalayaal
nabigana sala allahu wasalam wabaaraka calayhi sida uu uga digayay ummaddiisa in ay ku kadsoomaan ama ay waafaqaan ciidaha iyo dabaaldegyada gaalada. xadiiskii imaamu axmed iyo abu daawuud iyo nasaa'i saddexdooduba ay warinayeen waxa uu tilmaamayey qadima rasuulu llaahi sala allahu wasalam wabaaraka calayhi almadiina walahum yowmaani yalcabuuna fiihimaa. xadiiskaasi wuxuu tilmaamayey imaam axmed iyo abu daawuud iyo nasaa'i ay warinayeen nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi waxa uu soo galay magaalada madiinatulmunawara iyaga oo leh reer madiino 2 maalmood oo ay dabaal degaan oo ay cayaaraan. 2 maalmood ay reer madiino ay cayaari jireen ayuu nabigu ugu yimid sala allahu wasalam wabaaraka calayhi markuu maka ka soo hijrooday. markaasuu nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuu yidhi maa haadaani alyowmaan, 2dan maalmood oo dabaaldegaysaan maxay yihiin, maxaad ula jeedaan ayuu ku yidhi nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi. markaasay waxay yidhaaheen kunnaa nalcabu fiihimaa fi ljaahiliya, rasuulka ilaahayo waa dhaqan xilligii jaahiliyada aanu wadan jirnay oo inta aanaanu soo islaamin oo islaamnimada intaanaanu soo gelin oo gaalada xilligii aanu ahaan jirnay, gaaladii hore dhaqankoodii weeyo intaan gaal ahayn xataa 2dan maalmood waxaynu ahaayeen maalmo aanu ciidaysanno ama aanu dabaaldegno. nabiga marka sala allahu wasalam wabaaraka calayh wuxuu ku yidhi in allaha tacaala qad abdalakumaa khayra minhumaa yowma aladxaa wa yowma alfidri. nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh wuxuu yidhi ilaahay wuxuu idinkugu beddelay 2daas maalmood oo sanadkii aad ka dabaaldegaysaan 2 maalmood oo idinkaga sharaf badan, idinkaga khayr badan, wanaag iyo horumarkiina diineed iyo midkiina aakhiraba uu ku jirayo midkiina adduunyo ayaa ilaahay idinkugu beddelay. 2daa maalmood oo islaamku uu leeyahay waa yowma aladxaa wa yowma alfidri uu yidhi nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh. waa 2da ciidood ee islaamku uu leeyahay, waa ciid aladxaa iyo ciid alfidri. 2daas ciidood ayaa islaamku leeyahay uu yidhi nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi. sidaas awgeed qofka muslimka ah hadduu farxayo, hadduu damaashaad muujinayo, hadduu maaragtaahay faysto muujinayo, waa inuu muujiyo 2da ciidood ee islaamku uu iska leeyahay. islaamku marka walaalayaal beri ayuu ka yahay, mana ogola 2dan dabaaldegee la samaynayo christmas iyo ciidan kale oo laleeyahay hab new year laleeyahay, 2daba islaamku ma ogola mana qabo. xataa walaalayaal xilligii hore xilli dambe ayay fasaxeen mooye wuxuu mamnuuc xataa ka ahaan jiray christmaska iyo hab new year iyo waxyaalaha ciidaha christmaska xataa waxaan la ogolayn. dowladda maraykanku xataa ma aysan ogolayn xilligii hore 1970kii ayaa maraykanku ansixiyey in christmaska la dhigi karo, leannahu xataa gaaladii ayaa waxay ka yaqyaqsadeen waxyaalaha la samaynayo, tumashada la samaynayo, khamriga la cabayo, mafaasidda ka dhalanaysa ee maalkii fara badan oo meesha lagu halaagayo, fisqiga ka dhalanaya, gaaladii ayaa xataa ka yaxyaxay. markaasaa xataa maraykanka 1970 wixii ka horreeyey christmas in loo dabaaldego wuxuu ka ahaan jiray mamnuuc, laakiin 1970kii ayuu wuxuu noqday ilaa yowmina haada in laga dhigay qaanuun rasmi ah in laga dhigi karo, maraykanka laga dhigi karo. idan marka walaalayaal maadaama sharciga islaamku uusan ogolayn oo nabigana sala allahu wasalam wabaaraka calayhi 2da maalmood oo reer madiina ay mahrajaanka ama dabaaldega ama faystada ay samayn jireen, nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi waa u diiday. wuxuuna ku yidhi nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi 2 maalmood ayaa ilaahay idinkugu beddelay oo faysto ahee ciid ah, waa ciid aladxaa iyo ciid alfidri. sidaa awgeed qofkii maalin kale u arka dabaaldeg iyo damaashaad u arka sida sanadkan laleeyahay hab new year laleeyahay ama christmas day laleeyahay, waxyaalaha noocaas oo kalea walaalayaal sharciga islaamku ma ogola. midda kale waxaan hab new year laleeyahay, war aaway sanadkaagii qof muslima haddii aad tahay ataariikhu alhijriy ee lagu beegay ama laga soo bilaabay hijradii nebiyullaahi moxamed sala allahu wasalam wabaaraka calayhi magaalada madiine markuu u soo hijrooday, taariikhii la asteeyey oo muslimiintu weligood ay isticmaali jireen xaggee ka aaday? maalintaa ma xasuusatid? sanadka islaamku maalinta uu dhalanayo ma og tahay? maalinta uu dhammaanayo ma og tahay? wax qalbigaaga saamayn uu ku leeyahay ma jiraan, laakiin
taariikhan yacni qoladan masiixiyiintu ay isticmaalaan ama iyagu ay u badan yihiin marka uu dhalanayo ama uu cusub yahay waxaad muujinaysaa dabaaldeg, waxaad muujinaysaa farxad, waxaad qaybinaysaa maaragtay hadiyooyin, waxaad samaynaysaa hoteeladii inaad maaragtay ka kiraysato dadka ciidda noocaasa dhigaya. waxyaalaha noocaas oo kale ahi waa wax walaalayaal laga yaxyaxo oo qofka muslimka dhaqan ahaan iyo caqiida ahaan iyo dad ahaannimadaba waxuu ka yaxyaxo oo uu ka xishoodo wey. midda kale walaalayaal mas'aladan la leeyahay atashabuh bilkufaar waa masale xataa tusinaysa qofku inuu gaalada isku ekaysiiyo dhaqan ahaan iyo diin ahaan uu iskugu ekaysiiyo, labis ahaan uu isugu ekaysiiyo. maxaa kalifay qofku inuu qof kale oo bini aadama oo isagoo kale ama ka liitaba oo gaal ah inuu ku daydo? maxaa keenay? waxaa ka hadlay calaamatu ibnu khalduun. ibnu khalduun wuxuu ku leeyahay muqadamatu ibnu khalduun, qofka waxa keena qof kale inuu ku daydo waa haziima nafsiya. cibaaro nooca u eg uu ka cabiray ibnu khalduun. ibnu khalduun wuxuu ahaa sheekh ijtimaaci ah ee culumta bulshada aad u soo bartay ayuu ahaan jiray. marka ibnu khalduun wuxuu leeyahay qofka inuu qof kale ku daydo hal mas'alo uunbaa keeni karta oo waa haziima nafsiya. qofku inuu qofka uu ku dayanayo u qalbi jabay ama moraalkiisii uu jabay oo uusan aaminsanayn diintiisu inay ku filan tahay, uusan aaminsanayn quruxdiisu inay ku filan tahay, uusan aaminsanayn dhaqankiisu islaamku inuu ku filan yahay, caadadiisu inay ku filan tahay, ma aaminsana. wuxuu aaminsan yahay qofkan kale haddaadan ku dayan haqaafadaadii iyo hermagaalnimadaadii waxbaa ka dhiman, quruxdaadii waxbaa ka dhiman. qofkan markaad ku dayato markaasay bulshadu ku arkayaan inaad qurxoon tahay, qofkan markaad ku dayato markaasaa bulshadu ay ku arkayaan hermagaal inaad tahay. idan marka ibnu khalduun wuxuu leeyahay asalka ku dayashadu wuxuu ka yimid ama sababka dhaliyey waa qofka ku dayanaya inuu moraalkiisu jaban yahay. marka xishood waa wax laga xishoodo in qalbigaaga iyo moraalkaaga aad ku xirto gaalo dhaqankoodii ood u qalbi jabto gaalo, leanna ku dayashada asalkeedu waa qalbi jab. haddaad qalbi jabaysid u qalbi jab nabiyullaahi moxamed sala allahu wasalam wabaaraka caleyh khayru khalqillaah. aamin in hermagaalnimadaadii iyo quruxdaadii iyo noloshaadii ay wax badani ka dhiman yihiin haddaadan ku dayan nabiyullaahi moxamed sala allahu wasalam wabaaraka caleyh. laakiin haddii tintii aad u xiirato sida gaaladu ay u xiiran jireen, haddaad u labisato sida gaaladu ay u labistaan, haddii aad sanadka cusub dabaaldegiisa aad ka qayb qaadatid, haddaad christmas aad ka qayb qaadatid, taasi waxay tusinaya qalbigaagii inuu jabay, moraalkaagii inuu jabay, inaad aaminsan tahay haqaafadaadii iyo kaljarnimadaadii inay wax ka dhiman yihiin haddaadan gaalka aadan ku dayan oo qaabkiisii aadan u labisan oo dhaqankiisii oo kale aadan isku yeelin. waa dullinimo inaad u qalbi jabto qof gaal ah. midda kale walaalayaal waxaan isku baraarujinaynaa waxyaalahan yacni bilahan yacni masiixiyiintu ay isticmaalaan ama taariikh miilaadi la isticmaalo, kulligood waxa weeye magacyadoodu waa magacyo intooda badan ka yimid asnaam iyo qofkii kalandarkan dejiyey magacyadiisii waxyaalo ka yimidhu. oo hadda tusaale ahaan marka aad u dabaaldegayso bilahan cusub ama sanadkan cusub dhalashadiisa aad u dabaaldegayso, bishan maalan janaayo markii la yidhaaho, janaayo macnaheedu maxay tahay? janaayo waa ilaah ay caabudi jireen romayiniyiinta, magaciisa waxaa la dhihi jiray janaay. waa ilaah ay laba madax intay u yeeleen, waa ilaahii laba madaxlaha ahaa, ilaahii laba madaxlaha ahaa wey. waa marka magacyo laga soo maanguuriyey asnaam dowladdii romaniyiinta ama griigu ay caabudi jireen. bishan may markii la yidhaaho yacni ereyga may ha la fasiro waa ilaahii roobka noo keena. waa magacyo maaragtaahay asnaam ama gaaladu ay isticmaali jireen. bishan maaj markii la yidhaaho waa ilaahii dagaalka, yacni waa ilaah dagaalka nagu guureeya ayay aaminsanaan jireen. waa sanam magaciis ayuu ahaan jiray. bishan la leeyahay julaay la leeyahay waa ninkii sameeyey kalandarka sameeyey 12 bilood, habkaas nidaamka kalandarka ninkii sameeyey magaciisii weeye bishan la yidhaaho julaay. idan marka waxa weeye waxaad u dabaaldegayso waxaad ogaataa waa magacyo asnaam iyo gaalo ay lahaan jireen waxa aad u dabaaldegayso ood ku tilmaamayso happy new year aad ku tilmaamaysid oo aad leedahay waa sanadkii cusub oo waan u dabaaldegi. sidaa awgeed waxaanu ka wacyigelinaynaa walaalayaal qof walba oo muslim ah inay maaragtahay dhaqanka noocaas oo kale ah inay yeelato oo labada maalmood in diinta islaamku aysan ogolayn ayaanu u sheegaynaa qof walba ee muslima
dhaqankiisa doonaya inuu ka naxo oo mustaqbalkiisa doonaya inuu ka naxo oo diintiisa doonaya inuu ka naxo sidaa awgeed walaalayaal iska jira waxyaalaha noocaas oo kale ah mar walbaba ha ku dhaqminina hoteeladiinna ha u furinina guryihiinna ha u furinina dhaqamada noocaas oo kalea waxay keenayaan dulinimo iyo qalbi jabnimo iyo moraalkaagiyo jabay diintaadiiyo maaragtahay meel aad uga dhacday noloshaadii adduunyo iyo midaadii aakhiro ood khasaarisay kelimadeydii intaas ayaan kusoo koobi hada wabilaahi towfiiq والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته